بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد داوديال ku soo dhawaada barnaamijka maan godlin meel walba dunida ka daawanaysaan barnaamijka maan godlin waa barnaamij aan ku soo qaadano murtidaas oo godlin samaanka yaga naguna dhalisa inaan dhaqaaqno oo aan gaarno meel dheer oo noogu jirto dheef adduun iyo mid aakhir labadaba maanta murtidaan ka hadlaynay ciwaankeedu waxa weeyaan hagaaji hankaaga hano horumarkaada hagaaji hankaaga hano horumarkaada marka aad maqasho hagaajin ama hagaaji waxa laga yaabaa inuu maankaada ku soo degdego shay hab ama qaab u sameysnaa wax iska bedeleen isbedelkaas oo ku yimid muuqaalka guud oo shaygaas ama ma ahane gudaha kaga yimid mesela qofka waxa laga yaabaa in ay wax ku dhacaan oo shay uu saro ama ma ahane dhagax intuu ku yimaado uu dhaawaco oo dhaawacaas uu gaarsiiyo maartay dib jirkiisa uu gaarsiiyo taasoo ka dhalan karta qofkii inay mesela qanjibar intuu ku dhaco ee qandha ku imaato ay saameyso maartay jirkiisa oo u baahda markaas dhakhtar uu aado oo dhaawacii dhibaatadii soo gaartay ka dhaya ama ka hagaajiya sidoo kale hagaajin waxa kugu imaan karta shay jiha ku socday ama aad jiha ku dirtay mesela marka qof warqad u dirayso oo kale waxa leedahay waxaan ku jiheeyay hebel baa u diray waxa aan leenahay marka in la hagaajiyo ama la jiheeyo u baahan waa hanka waxaan ognahay hanku waa shay ilaahay subxaanahu wa tacaala oo bini aadamka oo dhan ku abuuray qof kastoo bini aadana wax uu jecel yahaa jirta wax uu hamiyaa jirta han uu hiigsanayo ayaa jirta hankaas mid wanaagsan oo isaga iyo ummadda maaragtay iyo ummado badanba anfaca uu noqon karaa han hooseeya oo xun oo isaga iyo ummad kala baabi'iya oo burburiyana wuu noqon karaa marka hanku waxaa la yidhaahdaa waa hagaha noloshaada waa midka ku hagaaya haddaad horay iyo meel sare aad gaari lahayd iyo haddaa hoos tahayba haddaa aragto qof meel sare gaaray oo wax maaragtay la mahadiyo oo wanaagsan isaga iyo ummadaba u qabtay haddaa aragtid hankiisa ayaa meeshaa gaarsiiyey oo wax by accident ama shil ahaan isaga dhacay ma ahane waa wax loo dhibtooday oo loo dhididay oo loo rafaaday oo kabacdina ay raaxa iyo wanaag ay ka dambeeyeen haddaa aragtid qof hooseeyana oo nolol hooseysa oo dhibaato ah oo maaragtay isagiina dhibtay wax allaale wixii la noolaa ama la saaxiib ahaana ay dhibtii ay la qaybsanayaan haddaa aragtidna waa qof uu hankiisu u hooseeyo weeyaan marka walaalayaal hanka sare waa han ka sidiisaba qof walba oo bini aadana ayaa jecel inuu hormaro uu han sare uu leeyahay waana midda rabbi subxaanahu wa tacaala uu noo ammaanay uu jecel yahay sida rasuulkeena salawaatullahi wasalaamu caleyh uu noo sheegay uu yidhi ina allaha yuxibu macaaliya alumuur wayakrahu safsaafaha ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu jecel yahay waxyaalaha maaragtay macaaliya alumuur waxyaalaha sarsare wuu jecel yahay iyo in meel sare la hiigsado wuuna necab yahay waxyaalaha hooseeya ilaahigii noo abuuray dhulkan bini aadamku u abuuray intuu u abuuriya dhulka adaa iska leh wax allaale waxaa ku jira oo dheefana ka soo saar intii la yidhi dhulkan adaa lagu abuuray loogama tegin waa loo fududeeyey ilaahay wuxuu leeyahay huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiica ilaahay waa allaha inii abuuray waxa dhulka ku jira oo dhan sidoo kale meel kale wuxuu ku leeyahay wasakhara lakum maa fi الsamaawaati wamaa fi اlardi jamiican min wuxuu ilaahay inii fududeeyey wax allaale iyo waxa samaawaadka oo dhan cirarka oo dhan toddobada cirar waxa ku sugan oo dhan ilaahay waa inii fududeeyey wuxuu alle inii fududeeyey dhulalka waxa ku sugan oo dhan wuu inii fududeeyey waana fadli min allahi subxaanahu wa tacaala ka ahaatay waana lagu siiyey aaladii iyo qalabkii aad ooga soo saari lahayd qofka han kale marka arrintaa wuu fahmayaa sida aayadda gadaal ka sheegaysaba yaa fahmaya qofka dhihi kara maanta war waxaan isku xirayaa birar baa intaan isku xiro oo aan diyaarad ka soo saaro baan badaha adduunka uga gooshaya ama biraa intaan isku xirxiraan baabuur ka soo saaraya midaan ku xaragoodo mid markaan geediga u baahanay aan ku guuro midka maraan u baahanay maaragtay inaan wadamo isaga goosho oo maaragtay alaab badan aan saarto aan maaragtay aan samaysto waxaa dhayaa baray in maaragtay gawaarida yar la sameeyo kuwa dhexe la samaysto maaragtay kuwa maaragtay 18 wheelers oo 18 taayir ay ku xiran yihiin oo maaragtay gobollo iyo wadamo isaga gooshaya in la sameeyo yaa keenaya liqawmin yatafakkaruun
آيات حلو وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قفك فكرايا أيا وحس فهم كرا أريد أفهم كرا إن وحول بقى possible يهين إن وحول بلا قبان كرو oo maanta hadeen qol lahayd inuu qofka hankiisa uu yahay inuu maanta uu yiraahdo waad qaan gaartay nin weyn baa tahay reer yeelo oo kale han baa lagu gaaraa in reer la yeesho oo ilmo la dhalo oo la tarbiyeeyo oo la hagaajiyo han wanaagsan weey waxa kale oo imaan karta inuu yiraahdo qofka barimaye ganacsi baan sameeynaya oo isaga umad badan baa ka maartay intifaacan han baa lagu gaaraa qof inuu yiraahdo maartay waxaan keenaya aalado cusub oo maartay dadka ay hore u arag baan keenaya han baa lagu gaaraa in la yahay shirkado waaweyn baan sameeynaya han baa lagu gaaraa in la yiraahdo dawlad iyo dad dhan baan u adeegaya oo shacab baan maartay aan wax ka soo saaraya waxa lagu gaaraa han sare maartay inaad naftaada iyo ummadda wax tarto oo wax qabato wax lagu gaari karaa han marka waxaan rabaa inaad aan ku siiyo maartay 12 qodob oo hagaajinaya hanka sidoo kalena aad ku hananayso horumarkaada inaad horumarkaada haranto iyo inaad maartay aad hagaajiso leensaan sheegnay hanku wuu hooseeya wuuna sareeya saan sheegnay ilaahay wuu jecel yahay hanka hoosana sidoo kale Allah subhanahu wa ta'ala waa neceb yahay oo laba qof oo muslimiina ama bini aadan ba ahba oo xitaa ama mu'min ba ahba ka soo qaadba mu'miniintu ilaahay dadku uu jecel yahay si gooni u doortay way oo rabbi subhanahu wa ta'ala u naxariisto ilaahay dadkaas uu kala jecel yahay kooda hanka sareeya iyo kooda hanka hooseeya rabbi waa kala jecel yahay soo rasuul xadiiska sallallahu alayhi wa sallam noogu sheegay al-mu'minu al-qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if wa fi kullin khayr احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن فاتك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا قل قدر الله وما شاء فعل أو كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وحواي مؤمنك قوي ما أها مدك جسمك وين وحوق وين ما لقى هالليه هدو يهيد إيماني وناق كدر صدنا فالنعم ما هي لكن وحواي مؤمنك هنك وين له وما أرتي إيمانك سو قوي هاي ونف قوي أهله وحقب سنكرة ومد وحقبان كرة ومد نبتدي كدر قاعدن كرة ومد نفس سهوين كرة ومد ربيرو بدبادي أو إحنا قضو إلهي وكتش عليه هاي متك الضعيف كأ وهنك سو هوسيو وإيمانك سو هوسيو oo wax ma taraha ah oo waxba aan qabsan karin oo waxba aan dul qaadan karin oo dabeeluhu meel walba ay ku tuuri karaan waa la kala jecel yahay marka waxaan rabaa saan ku sheegay inaan ku siiyo 12 qodob 12 ka qodob oo ku saabsan sa u hagaajin lahayd hankaada aan u gaari lahayd ku hanan lahayd horumarkaada marka sidaan u hanano horumarka aan raadinayno waxa laga maarmaana inaan hagaajino hankayaga saan sheegnay hanku wuxuu mar walba ku xiran yahay qofka waa wax rabbi subhanahu wa ta'ala bini aadamka dhan uu ku abuuray marka saan u hagaajin hankayaga walaalayaal horumarkan u gaarno qodobka koobaad ama qaybta koobaad qodobkeeda koobaad waxa weeyaan inuu qofka higsi leeyahay hadaa rabto inaad horumar gaarto oo aad meel gaarto waa inay jirtaa shay aad hiigsanayso maxaa ka wadnaa waa inaad vision leedahay aragti dheer oo fog oo aad rabto inaad ku dambayso waad maalin baa lagu dhalay oo dhulkaan ay maatay maalina waa dhimanaysaa dhulka waa lagu maartay dhulkaad ka hooseynaysaa waa laga wadaya dhulkaan oo waa laga dhaqaajinaya marka maxaa rabtaa in lagu xasuusto ma waxaa rabtaa inaad noqotid maartay nin maartay dhakhtar ah ama gabar dhakhtarad ah ma waxaa rabtaa qof injineer inaad noqotid ma waxaa rabtaa qof maartay caalim sheekh daaci ah oo dadka diinta alla gaarsi maartay inaad noqotid ma waxaa rabtaa qof ganacsado ah oo maartay shirkado waaweyn iyo maartay waxyaalo maartay ganacsiyo waaweyn iyo fursado waaweyn fura oo sameeya ma waxaa rabtaa inaad noqotid hogaamiye maartay ninka hadda madaxweynaha dalka aad u dhalatay ama maartay hogaamiye qayb un kamida inaad noqotid hogaamiye siyaasadeed مثلا miyaa rabtaa maxaad rabtaa inaad noqoto ma waxaa rabtaa inaad noqoto qof dadka caawiya oo mar walba ilaahay xikmad iyo aqliga uu siiyo qof dadka aruuriya oo maartay haga ah miyaa rabtaa inaad noqotid marka waa ina ogtahay
dhab ahaantii waxa aad rabto inaad noqoto tii alla markay ku imaatana maxaa rabtaa in lagu xasuusto taas baa waxay sare u qaadi kartaa ama hoos u dhigi kartaa hiigsiga iyo aragtida aad leedahay inay marka qalbigaad wuxuu ku macnaheedu ku hanka ku hagaagaya inaad hiigsi dheer aad leedahay waa qodobka koobaad qodobka labaad oo soo hoosgalaya maaragtay fikirka dheer aan ka hadlayno maaragtay si aad u hagaajistaankaada waxa weeyaan inuu qofka hadaf uu leeyahay waa inaad goals aad leedahay oo goolkan waxa la badanaa isticmaal smart goal waxay dhahaan waa wax specific ah measurable ah achievable ah oo maaragtay realistic ah timena ku xiran waa inaad goal aad leedahay goolka aad leedahay higsigaada iyo meesha aad u socotay ku geynaya maalin walba oo ilaahay kuu maaragtay dhaliyo oo nabadna kuu keena waa inuu qorshe kuu degan yahay oo maalintaada qorshahaadaas aad maaragtay aad dhamayso maalintaa qorshaha aad dhamayso ee wiig isku bedesho wiigii ay bili isku bedelaan bilihii sanadii isku bedelaan sidaas aad ku gaarto hiigsigaadii iyo socdaalkii aad ku jirtay nin la yidhaahdo Brian Tracy oo tababaraha ah dadka tababara ee weliba xagga goal setting iyo waxyaalahaas aad ugu fiican leadershipka dadka bara ayaa wuxuu yidhahdaa you can hit target you can see haddaadan target aadan u jeedin ma toogan kartid haddaadan toogan karin marka waa inaad target aad ku dejisan waa inay maalin walba ay ku cayimanta hadafkeeda oo wiigii hadaf ku cayimay oo bishii maaragtay ay ku cayimantahay oo sanadkii uu ku cayiman yahay oo inta aad ku gaarayso ma hal sana ama 2 sana ama 3 sana hiigsigaada iyo meesha aragtida ku dambayso waa in qorshe nidaam noocaas uu ku degan yahay qodobka saddexaad oo hada saddexaad ah waxa weeyaan inaad leedahay hal abuurku waa hibo ee bahay uu bixiyo hibo ilaahay uu siiyo waay creativity-ga waxa ma aha qof walba maaragtay uu leeyahay hase ahaatee waa wax la baran karo waa wax maaragtay nafta maaragtay ee kasban karto waana arin la tajrubeeyo way oo qofkiina maskaxdiisa iyo caqligiisuba uu maaragtay kobco wax loo yahay waay waxa la yiraahdaa sida ishaan aragtida nalka wax ugu aragto oo ishaan nalka la'aanta wax u arkirin boona caqliga cilmi la'aanta wax u arkirin marka caqligu wuxuu ku kobcayaa mar aad cilmi badan siisay caqligaada uu fidaya saan dib hadhow ka keeni doonaba way ka duwan tahay dadka la yiraahdo copycat-ka ah oo ma sida dafada intay wax hadaan aragti bay arkayaan fikrad bay arkayaan qof maartay ganacsi fiican maartay bilaabay arkayaan ama qof maartay cilmi fiican maartay yeeshay arkayaan ama qof maartay hogaaminimada meel fiican ka gaari arkayaan waxay isku dayaan inay copy gareeyaan oo maartay wixii uu copy gareeyo laakiin wixii markii uu dafo uu la aado aragtida ama fikradii hadhow creativity-gi problemka lagu xalin lahaa aawe garashadii iyo garaadkii caqabaadka kugu hor imaanaya ilaan hiigsigan dheer aad socotay caqabaad baa kugu imaanaya shaki aan ku jirin obstacles badan baa imaanaya caqabaad badan baa imaanaya caqabaadkaas waxaa ku xalin kartaa waxa weeye creativity-ga inuu qofku uu leeyahay hal abuurid uu leeyahay uu maaragtay wax urin karo weeyaan oo caqabaadku ku imaan karo oo ugu gudbi karo maaragtay goolkii iyo maaragtay ujeedada uu socdayna uu ku gaari karo markii aan dhahnay koow waxaa leedahay hiigsiga asraab gariso oo hadafkaadana aad maaragtay isagana aad sugto oo maaragtay hal abuurkaada aad sugto oo saddexa midda afraad waxa waaye hirgelin haddaad maanta hiigsi dheer aad samaysato hadafna u dejisato xikmadii iyo caqligii iyo kartidii iyo caafimaadkii meesha lagu gaari lahaana rabbigay ku siiyey laakiin aad waxba ka qaban wax ay taraysa male waa kana qodobka afraad ama hada afraad ay ku imaanayso oo ah hirgelin waa inaad wax hirgelin kartaa qorshe walba aad keento nidaam walba aad keento wax walba aad saraab gareyso haddaadan execute gareen implementation macnaheedu Facebook qaybkaas aadan hirgelin wax ku hagaagaya malaha waxa maanta ka hadlaysana hal bacaad lagu leeyahay noqonayaan wax faa'iido ay keenayaan ma leh de hadalna waxa la yiraahdaa waa wax maartay hadal u buu ahaaye wax maartay ma aha ficilkeedii wanaageed lagu gaari karo ma aha waxa marka way soo gudbeenaa qaybta labaad halka waxaan ugu dhamaatay qaybtii koobaad oo ku saabsaneed hagaaji hankaada hano horumarkaada waxaan galaynaa qaybta labaad iyadana waxaa hoos taala 4 qodob saan sheegnayna waa qaybta ku saabsan ficilka iyo farsamo wanaag ina qofku uu la imaado ficil markii u dambeysay waxaan idhi inaad hirgeliso waay hirgelintii waxa imaanaysa marka ficil intaadan marka ficil aadan la imaan
oo waxba aadan samayn waxaa muhiim ah inaad ha'adan shanaad aad maaragtay aad maaragtay aad iyadana aad hirgeliso oo aad samayso ama macnii ha'da waxay noqon kartaa koobaad qaybta labaad marka ha'da shanaad aan dhahno ha'da shanaad waxay ku imaanaysaa walaalayaal inaad hubaysan tahay inaad hub culus haysato hubka waxaan ka wadaa qofka maaragtay hadduu safar uu galaayo jiscintiisa sahankiisa wax walba oo safarka ay wadada uu galaayo u baahanta u sii diyaar garooba مثلا anaga hadda gobolka Minnesota aan ku noolnahay waxa hadda soo galnay waqtiga winterka ah qabowaha soo galnay marna waxa arkaysaa dadka oo dharka qabow soo gadanaya gawaaridii oo maartay la iska sii hagaajinayo oo la jinjaa lagu sameeyo taayiradaha laga sameeyo maartay wax walba abtu dheedin inay yihiin baa qofkii uu ku diyaar garoobaya marka hubka meesha marka waxaan ka wadnaa wax weeyaan labo noqonaya hubka ugu koobaad ugu muhiimsan waa cilmi meesha aad hiigsanayso waa inaad aqoontii iyo garashadii aad ku aadi lahayd waa inaad diyaar tahay macnaheedu waxa weeyaan inaad naftaada investment aad ku samayso adiga inaad wax badan aad barato shayga aad hiigsanayso aad jeceshahay oo aragtid inaad gaarto aqoon buuxa inaad ka yeelato waay waan sheegi doonaa qaybabka kale oo iyadana qayb ka noqon doona waa inaad aqoon taas aad u leedahay haddii keenaysa inaad physical u baahan tahay arrintaas waa inaad physical ahaan u diyaar garowdaa مثلا inaad hilibka iska ridaadee noqonayso inaad ma aragtay aad aalamiito in badan aad samayso aad carabta noqonayso cuntada caafimaadkeeda noqonayso adigu waa fahmay fikradda waa heshay wax walba physicalka caafimaadkaadaas ay u baahan tahay inay keentaan inaad la imaato waaye si ma aragtay psychologicalina inay maskaxdaadu adag tahay oo nin go'aan adag oo maskax adag oo ma aragtay aqoontaas inaad kasbato si aad ma aragtay safarka dheer iyo socdaalka aad galaysid aad ugu guulaysato aad u gaarto qodobka lixaad waxa weeyaan ama hada lixaad inaad aad tahay qof haybsada haybsiga waxaan leenahay waxa weeyaan safarka aad galayso waxaad ku gaari kartaa qof hadli kara inaad tahay hadal yaqaan ah garan kara qofka uu haybsan karo waxaad haybsanaysaa horyaalka dadka waxaan kaaga soo horeeyay oo soo sameeyay waxa aad higsanayso wax walba aan dhahnana badanaa waxaa la helaa dad waxaan soo sameeyey marka inaad ka xishooto ama ka qajiso qajilaad aad la imaato ama aad ka cabsato ma ahane waa inaad leedahay awood ama cilmiga aan sheegnay horey bay keenaysaa aqoontii ay ku tusto inaad wax wareysan karto aad isla weyneen aad kaliya wax qabsan kara kaliya wax qaban kara kaliya waa meel loo mari kara ma aha laakiin waa inaad hareerahaada fiiriso oo dadka ma aragtay aad haybsato oo ma aragtay aad horyaalka ummadda waxaan soo sameeyay aad samayso ma aha inaad ku khaldanto qof walba oo taay ku soo xirtay ama koofi ku soo xirtay ama khamiis ku soo xirtay ama ma ahane qof weyn oo ciroola oo yiraahdo ma aragtay in badan soo noolaan jiray ma aha hadda ka hor waxaan sameeyay barnaamij la yiraahdo waayaha adduunka waaya araga weydii horyaalka aad weydiinaysid takhasuska iyo hiigsiga meesha u socoto qof waxaan soo sameeyay samee weydii qofkaasna aad arki doontaa inuu qof tawaaduc yahay qof ma aragtay degan uu yahay wax badan ku siin doono guulo badan ku gaari doonto waxa weeyaan walaalayaal qodobka toddobaad waxaan dhahnay haddaad hubkii aqaatay qaybta labaad haybsiinana aad gashay xogtii aad heshay meesha u socotana aad og tahay waxa u baahan tahay marka inaad hayaanto waa hayaan waana ma aragtay hada toddobaad inaad hayaanto hijro weeye Soomaalidu waxay dhahaan xagla laaban xoolo kuma yimaadaan sidoo kale waxay dhahaan xagla laaban xoolo kuma yimaadaan midda kale waxay dhahaan intay calooshu ay bukuleed cagtu ha bugto inuu qofka dhaqaaqo oo hayaamo oo hijroodo oo ma aragtay uu safarka u diyaar garoobo oo dhulka ay taalo meesha u socdo waa inuu aadaa oo ama xikmadda ama aqoonta ama ma aragtay hiigsigiisu u yaalo waa inuu u dhaqaaqa haddaadan hayaamin oo aadan dhaqaaqin oo aad iska fadhido dee waxayna kuguma soo degaayo meesha aragtid ma gaari kartid hayaanku waa laga maarmaan weeye weliba markaad hayaamayso oo safraysa aad socotid waxyaalo badan baa wadada kugu imaanaya waa inaad habaaska kugu imaanaya boorka kugu dhacaya haraadka hurda la'aanta rafaadka jira
waa inaad u diyaar garowdaa waa markii aan ku dhahayo hubkaada soo qaado hubkaas waa inaad u haysataa u diyaar garaysan tahay socdaalka aad gelaysid aad diyaar ku tahay aysan noqon hal qof oo kaliya oo ku yiraahdo war meesha ma aadi kartid oo hankaada uusan jabin oo maarta socdaalkaada uusan kaa joojin oo maarta dhibaato uusan kugu keenin waan sheegi doonaa qaybta kale hada sideedaad oo maartay aan leenahay waxay hagaajinaysaa hankayaga horumarkayga waana gaarsiinaysaa walaalayaal waxa weeyaan hubsasho wax la yiraahdo inaad wax walba hubsato Soomaali waxay dhahaan hubsiinyo hal baa la siistaa waxa weeyaan inaad wax walba aad ku gaarto degdeg lama rabo inuu dulqaadka ka dhamaado lama rabo waa inaad kalsoonida hankaada uu buuxaa waa inaad yaqiin ka taagantahay horumarka u socotid marka waa xabsiinadaas waxay ku keenaysaa inaad dulqaad badan tahay oo waxa kugu imaan doona hadallo badan xaqiiqdeena maanta adduunka aan ku noolnahay bay'ada aan ku noolnahay dadku waxay u bateen dad ay ka soo hartay dayro wax la yiraahdo maanta dhayna wax u diidan yihiin dayro waxa lama sameyn karo waxa ma aadi kartid wax walba waxay kaaga dhigayaan buur waxaana keenaya waxa weeye arrimahan ka soo hadalnay qof aan kiisu u hooseeyo marka la hadasho wax kale ku siinaya qof aan aqoon lahayn qof aan diyaarsanayn markuu kula hadlo dhibaato badan kugu iimaanaysa marka waxa la rabaa inaad dulqaadkeeda leedahay cayba kugu iimaanaysa cadow baa kugu iimaanaya waliba mararka qaarkood waxay kaaga iimaanayaan meel aadan ka filanayn oo waxa laga yaabaa dad saaxiibo ku ah inay kugu keenaan ama dad ehel ku ah inay kugu keenaan oo adigana ay aad arinta kugu karkarayso ay dhibaato kugu keento oo hankaada dhan ay jibiso oo meesha u socotayba dhanba ay joojiso ha ahaadaan dadkaas dad dhaliilo dhab ah oo wax dhisay ku sheegaya hase ahaatee si khaldan kugu sheegaya ama ha ahaatee ma ahane dad aan dhaliilo ku dhiseen kugu talagalay rabo inay ku dumiyaan marka adiga dulqaad inta aad samaysato hadalka aad kala miirato oo dhaliisha wax dhisaysa iyo mid wax duminaysa aad kala qaataal raba ilaahay muxuu yiri alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana yastami'un markay dhageystaan way kala shaandheynayaan kii xun iyo kii wanaagsan ay kala qaadayaan kii u wanaagsan ay ka qaadanayaan ma dhahayaan ma aragtay ma niyad jabinayso marka inaad hubsiinada walaalayaal aan sameeyno hankeenana ayna dilin dadka waxa keenayana aad ka durqdo adigana aad ogtahay meesha u socoto weeyaan guul bay kugu dhamaanaysaa meesha rabtaana gaaraysaa ilaahayna wuxuu ku gaarsiin doonaa inaad hormarto aad ka bacdina aad sameeyso qodobada kale oo aan keeni doono oo afarta dambe ah iyo xabada suubiska ah walaalayaal waxaan ku soo dhawaanay dhamaadkii waxaan soo gaarnay qaybta saddexaad oo aan rabno waxa weeye inay noqoto ma aragtay qaybta farxadda iyo reereynta waxa weeyaan haddii aad fakartay oo aad higsi dheer la timid oo aad maaragtay hadaf dejisatay oo aad maaragtay hala abuur keensatay oo aad hirgelisay arrintii oo hubkii ay kaaga baahneed aad la timaaday oo aad dadka haybsatay oo aad maaragtay hayaanta u hijrootay oo maaragtay aad hubsatay waxyaalo badan aan ka soo hadan aad hubsatay marka waxa weeyaan saan sheegnay waxa dhab ah in idanka ilaahay aad gaari doonto meeshii aad higsanaysay aad guul kugu dambayn doonto badanaana ogow dadka guulaysta waxay guulaystaan marka ay sabraan ilaahay waa isaga dhahaya waja'alnaahum a'imma dadkii waxaan ka dhignay a'immaan ka dhignay goorma lamma sabaru markay sabreen oo rafaadkii iyo soo jeedkii iyo hurdala'aantii iyo haraadkii iyo wixii oo dhan markay ku sabreen baa a'imma laga dhigay marka waxaa la rabaa markaad aad gaartid meeshii ilaahay kugu talagalay iyo wanaagga aad gaartid kow inaad qof hambalyeeya aad noqotid waana ha'ada sagaalaad ama qaybta saddexaad ha'ada koobaad waa inaad hambaliyeysid inaad mahadisid naftaada aad ku mahadisid rabbigii ku abuuray oo hankaaga hagaajiyey oo horumarka ku gaarsiiyey inaad u hambaliyeyso oo aad ku shukriso si nimcada aad gaartayna lagugu ziyaadiyo lagugu daayo ziyaadana lagu siiyo la in shakartum la aziidannakum weeyaan qaybta labaad inaad arrintaas ay keento inaad noqoto hayin nin maaragtay
maartay hayin dadka u ah oo ileen waxa kulaylinaysta duruufihii iyo safarkii aad soo martay inaad marka dadka u jilicsanaato oo aad maartay dadka aad maartay aad u dhawaato oo aadan iskala weynaan oo kibir kugu imaan laakiin tawaaduc laga arko weeyaan tawaaduca waxay keenaysaa inaad ziyaado khayrkaada inuu sii laabo oo maartay aad guul weyn aad gaarto weeyaan then waxaa samaynaysaa waxaa haddana qaybta kale oo hada kale noogu dambeeya oo ah inaad noqoto mid habeeye ah nin dadka habeeya waxaan ka wadaa giving back to the community guul baa gaartay success baa noqotay nin dadka aruurin kara oo dhibaatooyinka dadka haysta xallin kara oo oday ah oo loo soo maartay murti doonto waxaa la yiraahdaa geedka waxaa loo raadsadaa laba arrimood mid waa mid harka uu leeyahayna waa loo raadsadaa midda labaadna miraha saaran markaan miraha ku saaran harbaa ku saaran harbaa lagu soo raasanayaa mira lagu soo raasanayaa waa inaad dadka ku kala habeen kartaa problem ku kala habeen kartaa aad hagaajin kartaa hawlahooda aad maartay dadkii ilaahay kugu dhex abuuray oo wanaagii guusha ku dhex gaartay waa inay dheeftaadii ay helaan oo wanaagaadii ay helaan qaybta u dambaysa weeyaan markaan oo ah inaad haga noqoto inaad hanuuniyo aad noqoto qof maartay mentor ah dadka coach gareeya waari dadka dhan u ah dadka hagaaya kaliya waxay kugu filan tahay marka guusha gaarto hebelo meesha ka doon aa u taliso waxa in badan dhacda dad badan markay meesha ay rabaan gaaraan ka soo qaad mid baa tacliinta galay PhD du rabo gaaray waxa laga yaabaa marka inuu bilaabo dadka oo xaqiro oo dadka hoos u fiiriyo oo liido Soomaalidan maxay ahaayeen dadkan maxay ahaayeen uu dadkii shalay ula dhashay uu ku soo dhax koray ama wax uu la noqday inuu bayasaba meeshuu ka hagi lahaa oo ka hanuunin lahaa oo wadada dheer uu soo maray uu dhilaa aniga dhibaatooyinkaas ay soo maray godadka ka leexo buu markaas xitaa dadka qaarkood baa waxayba jeclaystaanba inay dadku meesha uu soo gaaraysan gaarin ee godad kalaba ku soo maray kuwa kalaba uu sii dhigo uu yiraahdo okay anigu ehelkii kaliya ama qaraabadayda ana ninka ugu lacag badan ah ama ninka ganacsiga aniga ah ama ninka ugu aqli badan aniga ah ama ninka ugu cilmi badan aniga ah in darajada uu qabsada ma ah meesha uu rabay 100 isaga inay dhashaan ya waxa in badan dhacda inuu qofka dadka uu iskala liido oo dhacda laakiin qofka hankiisa hagaajisan yahay wuxuu sameeyaa si arinta u sii weynaato oo uu taariikh ooga haro oo maartay ummado badan maartay maalintu geeri uu tiisa imaato ay u ooyaan oo wanaag iyo duco ay soo gaarsiiyaan buu dadka inuu liido laga yaabaa marka ta u dambaysan taas weeye waxaan kuu sheegayaa qodobkii suubiska ahaa oo u dambeeyay oo ah walaalayaal waxaasoo dhan waxay hirgeli karaan inaad hiigsiga aalada kuu rumowdo hadafyada aad samaysatay inay kuu hirgalaan ma aragtay hal abuurkaadu inuu barakoodo uu fiicnaado ma aragtay hirgelintaadu in Ilaahay kuu fududeeyo wax walba aad damacdo ku hirgalaan oo hana qaadaan in Ilaahay aqoontii iyo kartidii iyo tabarta u baahnid uu ku hirgasho in aad hesho dad wanaagsan oo aad la hadli karto oo aad xeebsan karto oo ma aragtay meesha aad ku gaarsiin karaan in aad noqoto qof lagu dheefiyo dulqaad iyo cilmi waxa intaas oo dhan ku suurtagelin kara hada u dambaysa inaad leedahay hadaa weydana waxa soo dhan haadaan bay ka dhacayaan way halaabayaan wax hagaagayana ma jiraan maxay tahay haadan ina hawada sare ku xiran tahay khaaliqi ku abuuray ina ku xiran tahay isaga cilmiga iyo xikmadda ku siinaya isaga laga bariyaa wax walba isaga la weydiistaa wax walba rasuulku wuxuu dhihi jiray salaatu Allahi wa salaamu alayhi Allahumma la maani'a lima a'tayta wala mu'tiya lima mana'at ilaahayow wixii aad bixiso wax ka hor istaagi kara oo joojin kara malaha wixii aad diidana qof bixin kara malaha ya ku duceysan jiray rasuulkana salaatu Allahi wa salaamu alayhi waxyaalahaas ku duceysan jiray waxa weeyaan inaad samada ku xiran tahay rabbi aad weydiisanayso rasuulka mar walba ilaahay xitaa weydiisan jiray wuxuu ducooyinkiisa qaaliga waxa kamid ahaan jiray inuu dhihi jiray oo rabbi ku duceysan jiray inuu ilaahay si cilmi oo cilmigaana ilaahay subhanahu wa ta'ala ku dheefiyo wuxuuna rabbi ka magan jiray cilmi aan dheef lahayn wa min cilmin la yanfa wa mid hadda aniga laftiga aan kula hadlayo aan dareemayo walaalka oo arinta hadda aan keenay ana u baahan waxaan u baahanayna waxa weeye inaan nafteyda inta qodob u sheego walaaladeena aan isdhaw alle iyagana u baahan yihiin aan rabbina markaa ka barado oo aan dhahdo Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittibaa'a wa arina al-baatila baatilan warzuqna ijtinaaba maxaa yeelay waxa arkaysaa dad badan
oo xaqa iyo wanaagga la tusaayo laakiin aan lagu dheefinayn ya waxaa la soonka salaada sadaqada ma aragtay al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar maxaan ku iraahdaa qaraabo salaanka qaraabo xiriirinta dad jeclaanta wanaagga dadka la jeclaado dhan og laakiin haddana aan garab maraayo ilaahayna nagama dhiga dhamaanteen ilaahayna xaqna tusaan aan ka baryana waxa kale oo jira dad xumaanta dhan arkaya beenta iyo khamrida iyo zinada iyo dhaca iyo boobka iyo ummadoo la xasdo ummadoo la xaqiro ummadoo hoos loo dhigo waxaas xumaan oo dhan uu arkaya lagama beyrinayo wixii buu ku dhex jira ummadii xastaya ummadii isku dirdiraya ummadii ma aragtay dambi ka sheegaya isaga waxyaalo xun ku jira oo ilaahayga ku xirneen ummadii ku xirneen oo dhibaato ah marka waxa weeyaan walaalayaalow ilaahay wuxuu hagaajiyaa hagaagsan ilaahay qofku u gargaarana qof ka hor imaan kara mala waa waxaan ana u baahanahay nafteen u baahanahay waa waxaan rabaa inaan naftayda aan baro adigana aan wada barano waxa sheekheena Sheekh Umar Faaruq عليه رحمة الله كفاية حكمة وين وحير العلم يزيد بالإنفاق وينقص بعدم الإنفاق علمي جمرك هذاك عبرته بوكوك سكرنيا أو قوانت كوس سكرنيسا علمي كوس سكرنيسا أو قف كسر أنا جنبي حال ربع أنت أوبرت إله آية هنقطة بلغوا عني ولو أي رسول كان صلى الله عليه وسلم إنه قف أوف إيديه وقف حنبل تواضع ميران أو نقضه وما أعرف قف ومد خير لو لا أو نقضه تاسا كو جاري كرنا ولا ريالو أنتاس وأنتي أنا ما أنت أنك هذا لنا إذا كلا وحرجينا إن سكوسو دي بنقناه مر لبعض برنامج كان ما نقولين يقضب كلا أو حسلة ولكن عبد النور آذن حير وحن ربي كبر إياه إنه أنت هدا الشيء نفته إذا ولا على ذي يومد بقول فهنسيه كوي يكون رغم أن نقناه كوي هرم مرة إن نقناه كوي هنكو ذا وسرية أن نقناه كوي جيسيالة أن نقناه كوي مرد القاضي aan noqono kuwa ma aragtay daacayaadka dhibaatada iyo dulmiga dhibaatada jirta u dulqaatan noqono kuwa guuleysta noqono wa salaamantiin wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh